halkan waxaan ka baranaynaa fideoga saddexaad waxaa waaye ubedelidda darajada xagasha ilaa radian. marka darajada xagasha darajada lagu qiyaaso marna daraja lagu qiyaasaa marna radian. marka radianka badanaa lagu qiyaasaa koobaabinta xagasha oo dhexbarkeeda ka samaysanta ayaa badanaa lagu qiyaasaa. marka xagashaas waxay noqonaysaa mid wareegsan oo mataqaanaa qiyaasteeda haddii halka wareeg uu yahay 360 darajo. radiantii loo bedelana waxay noqonaysaa 2 by ay noqonaysaa. mar kale aan qaado doonaa qiyaastaas. halkan waxaan qaadanaynaa bedelidda darajada loo bedelo mataqaanaa radian. marka wuxuuna siiyey tusaalaha aan qaadanayna waxaa waaye wuxuu yidhaahday waxaad bedeshaa 540 darajo ubedel radian ubedel. marka intaanan bedelin waa inaan naqaanaa halka darajo meeqa radian waay waa inaan naqaano. marka waxaan ka bilaabaynaa inaan horta aan macluumaadkaas horta aan xasuusanno. macluumaadkaas wuxuu leeyahay halkan ku horeeyaa khadaan horeeqa waxaan leeyahay hal darajo muxuu la mid yahay wuxuu la mid yahay kelimadan oo maaragtay Greek letter waaye baayo loo qaybiyey 180 oo radian inta radian halka darajo intaasoo la mid yahay. waxaa kaloo aan baranaynaa radianka wuxuu la egyaana markaan aan radian aan aan bedeli tagno ayaan maaragtay aan isticmaalaynaa. marka waxaan leeyahay habkan u bedelayna marka hadda u fiirso. waxaan leeyahay kana soo qaadana inta waxaan ku qoraa solution waxaan haystaa lambarkan 540 darajo waxay la mid tahay markaan rabo inaan radian u bedelo 540 sidaan qoraa markaysa waxaan ku dhufanaa hal darajaan ku dhufanaa meesha oo darajo ahaaday daraja waxaan ku bedelaa hal darajo. kabacdi waxaan sameynaa waxaan leeyahay 540 lagu dhuftay darajadan waxaan u bedelayaa radianka sababta waxaa bedel radian la dhahay sida halkan ugu qoran tahay bedel radian. marka meesha darajada waxaan replace gareynayaa inta darajadu la eg tahay oo radian ah waa kan. marka waxaan qoraa lagu dhuftay baayo loo qaybiyey 180 markaysa. marka halkaa marayo waxaan sameynaa waxa ziradaas oo darafka xigta iyo zirada darafka xigta kan way isku dhufsan yihiin. macnaa haddaan mar kale sii qoro anoo saa eri lamid taha 540 lagu dhuftay baayo oo ayaga dhan loo qaybiyey 180 saasay lamid taha. waxaan sameynaa markaa ziradan iyo ziradan waa kansala maxaa isoo baxayo
konton iyo afar loo qaybi lagu dhuftay baayo markaysaa loo qaybiyey 18 markaysaa labadan waxaa ka dhexeeya 9 haddaan u qaybiyo kor iyo hoos 9 u qaybsamaysa marka waxaan leeyahay 9 u qaybi kor waxay noqonaysaa 6 9 intuu u qaybiyo waa 6 oo baayo ah intana 9 haddaan u qaybiyo 2 waay 18 9 haddaan u qaybiyo waa 2 intaan uga matagana waa inaan simple fargareeyo kor iyo hoos 2 u qaybsa inta 2 u qaybi intan 2 u qaybi waxaa soo baxaysa 3 baayo oo radianis ah radianis waxaa nihaayada radianis marka waan dhamayna markaas 3 radianis ayaa soo baxday solutionkan sidaas ayuu noqday aan u dhaan